waxyaabo badan oo aad muhiim u ah ayaa jirkeena ka dhaco inta aan jiifno ama aan hurdeyno. haddii uu qofka caadaystay in hurdayari uu ku jiro mar walba ama hurdadiisa yaraato, waxaa mar walbeeta sii yaraanaya awoodda maskaxdiisa ay lahayd. sidaas darteed waxaan ku soo koobaynaa 7 dhibaato caafimaad uu sababo dhafarka ama hurdayarida insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود إينا في مرينكا أما عذرات كضع فيره. هدي أد جنالك كعصوب فضلا سبسكرايب ده سيادنا على ساعة مروال بفضلا ريح جنب الالحق. maanta waxaa ka hadli doonaa dhibaatada caafimaad ee dhafarka ama hurdayarida. dadka badanaa way og yihiin inay cunaan cunno nafaqo leh si ay u helaan energy iyo caafimaad. dadka badanaa way og yihiin inay aalmiito sameeyaan si ay caafimaadkooda kor ugu qaadaan. laakiin in yar ayaa fahansan ahmiyadda jiifka ama hurdada ay u leedahay qofka caafimaadkiisa. waxyaabo badan oo aad muhiim u ah ayaa jirkeena ka dhaco inta aan jiifno ama aan hurdeyno. waxaa maskaxda laga nadiifiyaa wasaq badan inta uu qofka jiifo, taasoo ka imaanaysa xubnaha jirka. sababtoo ah qulqulka dheecaanada maskaxda maraya waxay ka badan yihiin 20 laab marka uu qofka jiifo marka loo fiiriyo marka kale. haddii uu qofka caadaystay in hurdayari uu ku jiro mar walba ama hurdadiisa yaraato, waxaa mar walbeeta sii yaraanaya awoodda maskaxdiisa ay lahayd, kadibna awooddii jirka ayaa dabcayso. sidaas darteed waxaan ku soo koobaynaa dhibaatooyinka caafimaad ee dhafarka ama hurdayarida 7 qodob. qodobka koowaad, xasuusta oo daciifta. Florida State University Department of Biological Science cilmi baaris ay samaysay waxay heleen in hurdayarida ay saameyn weyn ku leedahay xasuusta. qofka intuu jiifo maskaxda waxay diyaarisaa hab uu ku soo xasuusan karo waxyaabaha cusub uu bartay ama arkay. xasuusta waxaa loo kala qaadaa 2. tan koowaad, xasuusta muddada dheer oo ah kaydinta xasuusta wakhtiga fog ama wakhtiga dheer. tan labaad, xasuusta muddada gaaban oo ah habka uu ku xasuusan karo qofka wixii dhacay sakamo ilaa iyo 7 daqiiqo. haddii uu caadaysto qofka inuu hurdadiisa yaraato, waxaa ku bilaabanaya inay dhunto xasuusta muddada dheer, kadibna waxaa ku dhacaya inay aad u xumaato ama aad u yaraato xasuusta muddada gaaban. qodobka labaad, habfakarka qofka oo xumaada. Päivi Polo oo ah bare ka tirsan jaamacadda Turku ee dalka Finland qaybteeda Sleep Research Unit-ka ayaa waxay sheegtay research ay samaysay hurdayarida waxay sababaysaa in qofka ku adkaato inuu si fiican u fakaro asagoo aan dareemin. sidee lagu garan karaa qofka fakarkiisa inuu isbedelo? waxa ugu horeeya isbedelaya waxaa waaye concentrationka ama qofka inuu markaas kula socdo. waxaa laga yaabaa inaa maantoo dhan wax u sheegaysid dhowr jeer kala duwan ugu soo celcelisid qofka, sidaas darteedna uu weli ku fahmi la'yahay ama weli uu qofkii ku fahmi la'yahay adigoo ku celcelinayo, qofkii oo hal abuur aan yeelan karin. waxaa kaloo lagu gartaa in qofkii ay ku adkaato xallinta brobleemka ama xallinta dhibaatada. waxaa laga yaabaa inuu broblem qofkii u imaado, brobleemkiina uu ka sii daro ama uu dhibaatadii dhibka weyn uu ku sii geysto meeshii la rabo inuu qofka u xalliyo. saddexdaas hab waa 3 hab ee lagu ogaan karo qofka fakarkiisa inuu dhib soo gaaray iyo in kale. qodobka saddexaad, dabeecadda oo isbedesha. website-ka National Health Service ee laga leeyahay waddanka Ingiriiska qormo uu daabacay waxay ku caddeeyeen in hurdayarida ay keenayso dabeecadaha inay isbedelaan. qofkiina marba xaalad aad ku aragtid, mar wuu xanaaqsan yahay ama inuu xanaaqa ayaa aad u fudud, marna qofku wuu niyad jabsan yahay ama ma hadlaayo qofkii. kullina waa calaamadaha lagu garanayo qofka dabeecadihiisa inay isbedbedelayaan. qodobka afaraad, isku dhaca iyo shilka oo sahlanaada. Dr. Patrick Finan oo ah cilmi baare dhanka hurdada ah ee jaamacadda John Hopkins ayaa sheegay article uu qoray in ka badan 6,000 oo qof sanadkii u dhimato shil baabuur, sababtana ay tahay hurdayari. qoraaga weyn ee Camilla Berry ayaa ku qortay website-ka WebMed in qofka haddii ay hurdadiisa yar tahay ama qofka caadaysto hurdayarida ee aad u badan tahay, jaaniska uu shilku geli karo ama naftiisa halis ku gelin karo. mararka qaarna dhaawacyo aad halis u ah ay ku soo gaari karaan, mararka qaarna suuragal ay tahay naftiisaba inuu waayo ama uu dhinto qofka. qodobka 5aad, cudurrada wadnaha iyo dhiigkarka oo aad u bato. Dr. Jolanta Ozel oo ah dhakhtar Polish ah kana tirsan jaamacadda Gdańsk ayaa wuxuu qoray researchgaas uu ku caddeeyay qofka caadaysta inuu jiifto in ka yar 5 saacadood habeenkii ay fursadda cudurka wadnaha ama in ay ku dhacaan dhiigkarka uu aad u badan yahay mustaqbalka. sidoo kaleeto dhakhtar ka tirsan jaamacadda John Hopkins Patrick Finan
wuxuu sheegay boqolkiiba 48 dadka hurdadooda yar tahay inay ku dhacayso cudurrada wadnaha sidoo kaleetana dhiigkarka. qodobka 6 difaaca jirka oo yaraado. qoraal lagu qoray website-ka Healthline ee dib u eegis ku sameysay Dr. Alan Bigeris ayaa lagu sheegay in qofka ay hurdadiisa yar tahay difaaca jirkiisana uu aad daciif u noqonayo waqti kadibna ay adkaanayso in cudurrada fudud uu la dagaalamo sida hergebka. qodobka 7 rabitaanka galmada inuu yaraado. Harvard School of Medicine Division of Sleep Medicine laba dhakhtar oo ka tirsan Dr. Jay Wook iyo Dr. Jane Duffy ayaa cilmi baaris ay sameeyeen ku sheegay in hurdayarida ay saameyn weyn ku leedahay rabitaanka galmada oo aad hoos ugu dhacayo maadaama uu mar walba qofka dareemayo markay hurdada ku yar tahay daal iyo caajis fara badan. sidaas darteedna qofka marka ka dambayso in ay rabitaankiisa uu hoos ugu dhacayo. waxaa hurdada oo yaraata saameynaysaa dheecaanada dheefshiidka si habsami leh inay u shaqeeyaan sababayay. sidoo kale waxaa dhumaya habsami u socodka hormoonada oo habeenkii badanaa dhaca marka uu qofka jiifo. dhibaatada hurdayarida haddii ay joogto noqoto waxay sababaysaa in qofka hurdada uu waayo maadaama maskaxdii sida la rabay in u shaqeynin qofka waxaa suuragal ah in hurdada kulligeedba uu waayo. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey mar walbana la heli karo qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynaynaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha Allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga si aad mar walba noola socoto. fadlan subscribe saar. aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale fiidiyo kale insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.